mawduucyada ugu shanta badan ee dad ay ku hadlaan waayadani dambana qorshayaasheedii la wado waa mawduuca ah sidii dadka loo kala yareyn lahaa. Dooduse waxa ay tahay bani aadamka aad ayuu u badan yahay, sanadba sanadka xigana bani aadamku waa uu sii kordhayaa. Sidaasi darteeda waxa ay u arkaan badnaanshaha dadka wax halis ah oo mudan in laga hortago. Dadka kuwoodii xadgudbayna waxa ay dhahaan kheyraadka dunida yacni arsaaqada dhulka taala waa ay xadidan tahay. Haddii dadka ay bataan dhalmadoodiina aanan la xakameynin, dhulka arsaaqad ku filan dadku kama ay heli doonaan. Tanina waa kelimad weyn oo xadgudub ah. Dadka aanan muslimka ahayn marka ay sidani ay leeyihiin, kuwa kale oo iyagana aanan isogeyn barnaamijyadani ayay si toos ah u difaacaan. Waxa aad telefishinada aad ka arki kartaa siyaasiyiinta oo arrimaha qoyska iyo sidii bulshada loo yareyn lahaa siyaabo kala duwan u difaacaya. Xilli aanan fogeyn madaxweynaha dalka Masar waxa uu mushkiladda ugu weyn ee dalkiisii Masar uu ku tilmaamay tirada dhalmada dalka oo aad u sii kordhaysa, balse arsaaqada iyo nolosha qof waliba ee dunida ku soo biira Alle ayaa u ballan qaaday. Maadaama aysan dadkani rumaysnayn ama aysan ku qanacsanayn aayadahaasi, waxaa dabiici ah kolka in ay ka walwalaan arsaaqada mustaqbalka ee carruurta dhalan doonta. Haddaba muuqaalkani waxa aynu kaga hadli doonaa nidaamka dhalmada dunida sida uu ugu kala qaybsamay. Qayb ka mid ah dunida marka ay dhalmadoodii aad ay u yar tahay, qaybo kale oo dunida ka mid ah dhalmadoodii waa kuwa aad u badan. Maxaase keenay in lagu fakaro fikradahani shaydaaniga ah ee dadka in lagu kala yareeyo? Badnaanshaha tirada dadka waa awoodda ugu weyn maanta dunida aynu ku nool nahay. Tanina waxa aynu ku arki karnaa sida dadka ay ugu faanaan kolka ay tiradoodii ay badato. Sifaadka ammaanta ee dadka naftoodii ay ugu yeeraan sida bulshada ugu badan ee halkaasi, ama bulshada ugu badan ee magaalo hebel, ama magacyada ay isugu yeeraan sida laaneere ama dadka laga tiro badan yahay. Taariikhda bani aadamkuna owlaadda iyo dhalmadu waxa ay ahayd factory weyn oo bulshada weligeedii ay ku tartami jirtay. In bani aadamka uu ku tartamo dhaqaalaha iyo tirada owlaadda waa waxyaabaha dunida ay ka kooban tahay, sida uu Alle Qur'aanka Kariimka uu ku sheegay suuradda Xadiid aayadda 20. Haddaba dadka dhaqaalaha dunida boqolkiiba 90 gacanta ku hayo ma ay rabaan tirada dadka oo badata. Tirada dadka oo badata micnaheedii waa awoodoodii in aysan baaqi ahaan doonin. Dadka ugu taajirsan dunida hantidoodii marka la isku geeyo waxa ay gacanta ay ku hayaan ama ay kontroolaan hantida dhulka saaran boqolkiiba 90 oo dhan. Mawduucani oo ah mid xasaasi ah oo doodo badan dhaliya, badanaana aanan laga hadlin, waxaa suurtagal ah wargeyska The Guardian oo isaguba ay iska leeyihiin dadka maalqabeenada ah. Waxa aad ku arki kartaa qoraal sida ka muuqata waxaa baaritaan lagu ogaaday boqolkiiba 1 dadka ugu taajirsan dunida waxa ay gacanta ay ku hayaan kala bar hantida dhulka saaran. Wargeys noocani oo kale oo si weyn loo ixtiraamo kana mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalka Ingiriiska ka soo baxo. Haddii qoraal noocani oo kale lagu arki karo hantida dunida kala bar oo dhan in ay hayaan dadka dunida ugu taajirsan, xaqiiqadu in intaa ay ka badan tahay. Inta la qariyo oo aanan muuqanin ayaa ka badan. Waxaa laga fahmi karaa xaqiiqada in intaa ay ka badan tahay. Wax waliba oo aad isticmaasho, moobilkaagii oo ugu yar, dharka aad xirato, faranjeerka, wax waliba oo gurigaagii yaalo, haddii aad dib u baarto halka ay ka imaadeen, waxaad ugu dambeyn ogaan doontaa shirkadaha soo saaray, shirkadaha iyaguna qalabka ay ka soo qaateen, shirkadaha kale ee iyaguna maadooyinka aasaasiga ah ay ka soo iibsadeen. Silsiladana haddii sidani aad ku wado, ugu dambeyn shirkad waliba waxa ay isticmaasho halka ay ka keento kheyraadka asalka ah ee waxyaabahani laga soo saaro cidda maamusha. Waxa uu qofku arki doonaa dadka ugu taajirsan dunida ee boqolkiiba 1 in dadka dhulka saaran oo dhan ay u shaqaynayaan.
haddaba dadkani maalqabeennada ah oo dadka dhulka saaran oo dhan wax walba ka iibin kara, qofka ay rabaanna lacag ku soo jiidan kara, awooddoodii dhaqaale waxa ay siisay kalsooni ah in meerahani dhulka oo dhan sida in ay ku fakaraan in iyagu ay leeyihiin. waana sababta in badan aynu u maqalno mawduucyada ah in loo baahan yahay in dadka la kala yareeyo ama taranka oo bataa in mushkilad ay tahay. waayo dadkani marka ay arkeen kheyraadka asalka ah ee dunida in iyagu uu hoos yimaado iyagana ay maamulaan, waxaa kolkaa ay sabirteen in iyagu ay yihiin dad si gaar ah alle inuu u doortay, dad si gaar ah wax loo siiyey, weliba dad iyaga si gaar ah loogu talagalay uunka kale oo dhan bulshada inay iyagu ay u khidmeeyaan. awoodani dhaqaalaha qof haystaana ama qoys haystaa suurtagal ma aha in uu jeclaado in dadka dhulka ay ku soo bataan. dadka oo bataa waa fikrado cusub oo imaada, fikrado cusub oo imaadana waxa ay halis ku yihiin system ka jira. dadkii waqti xaadirkani suuqyada dunida oo dhan iyaga oo keliya uu u xiran yahay. sidaasi darteeda mashruuca dhalmada lagu yareynayo ayaa in badan dunida ka socda. caqabad weyn oo u baahan in la xakameeyo ayaana loo arkaa dhalmada. haddii dadka ay aad u soo bataan waxaa adkaan doonta xilliga midaynta dadka iyo in la maamulo. sidaasina waxaa la filan karaa ayaa la dhahaa dagaalo. dadka qaar ayaaba aaminsanba in gebi ahaanba in la baabi'iyo dadka dhulka saaran. dunidu waxa ay ku filan tahay ayaa la dhahaa ilaa 5 bilyan oo qof ugu badnaan. dadka aanan aqoonta lahayn, dadka saboolka ah, dadka aanan xirfadda lahayn, gebi ahaanba dad culays ku ah dhulka ayaa la rumaysan yahay, waxaana rumaysan dad gaar ah. haddaba innaga muuqaalkeenii waxa aynu ku soo qaadan doonaa sida ay u fakaraan iyo sida ay xikmadda alle wax walba isku beddelayaan, sida ay iyagu u dadaalaan si ka duwan ayuuna alle natiijada uu ka dhigay. haddaba waxaa lagu fakaray in dagaal lagu yareeyo dadka iyo in lagu yareeyo sabool iyo in bulshada oo dhan faqri in laga dhigo, cunaqabateen in la saaro bulshooyinka qaarkood gaar ahaan kuwa loo baahan yahay, in faqri joogto ah iyo colaad aanan dhammaad lahayn in bulshada muddo badan ay ku jiraan, ilaa heer bulshadaasi dagaalada badan ku jira iyo dhaqaale la'aanta ay ku fakaraan adiga oo dhaqaale kugu filan aadan haysanin sidee ayaad u dhali kartaa caruur aanan mas-uuliyadoodii qaadi karin. fikrad noocani oo kale ah ayaa loo maleeyay in dadku ay ku fakari doonaan. tusaale, dalalka Afrika, dagaalada, faqriga, cudurrada dadka ay la nool yihiin, bulsho noocaasi oo kale ah oo la rumaysnaa in dhalmada ay iska joojin doonaan, waxaaba la arkay in dhalmadoodii ay sii laba jibaarmayso. kaam hebel caruur mataanaha ayaa ku dhalatay iyo kaam hebel 3 caruur oo mataanaha ayaa hal mar haweenay wada dhashay. rabooro noocani oo kale oo aanan la yaraysan karin ayaa meel walba lagu arkaa. si aanan la xakameyn karin ayana dadka fuqarada ah ay aad ugu tarmayaan. kuwa taajiriinta ahna maba ay guursadaan, kuwii guursadayna qayb weyn oo ka mid ah hosbitaalada ayay ku noqnoqdaan sidii ay caruur ay u dhali lahaayeen. waxaa halkani ka soo baxday natiijo dhalmada bani aadamka waxa ay ku koodhaa faqiirtinimada, xaaladaha dagaalka, mujaadalada adag ee nolosha. qof qaxooti ah ayaaba caruur kaamamka dhexdiisii ku dhex dhalaya. dadkii dhaqaalaha haystay ee isku filnaansho maaliyadeed gaarayna si tartiib tartiiba mid walbo ka mid ah waa uu dabargo'ayaa. tusaale, sanadkani 2023 Soomaaliya waa dalka afaraad ee dunida ugu dhalmada badan. heerka dhalmada gabadha Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay dhasho 6.1 canug, yacni hooyo walba oo Soomaaliyeed ugu yaraan caruur aanan ka yarayn 6 canug ayay haysataa. marka loo barbar dhigo dalalka kale sida liiskani hoose oo kale, South Korea heerka dhalmada dalkaasi waa 9, taasooba xitaa lagu micnayn karo dumarka qaar ee dalka waxba ma ay dhalaan. haddii la badiyana waxa ay la micno tahay gabar waliba oo wadanka ku nool ama hooyo waliba hal canug ayay dhashaa. tanina hal wadan oo keliya kuma koobna, dhammaan wadamada dhaqaalaha uu alle uu siiyey ee isku filnaansho maaliyadeed gaaray lama siinin owlaad badan, halka kuwa saboolka ahna
caruurta in badan loo badiyey. Waa xikmad cajiib ah oo isku jaango'an, midkood midka kalena dhammaystir u yahay iyada oo midka kale waxba aanan ka nusqaamin. Haddaba dadka laguma yarayn karo sidii bilowgii hore lagu fakarayay faqiirtinimo iyo in lagu cabsigeliyo dagaalo iyo waxyaabo badan oo halis ah. Waayo dalalkii ugu faqiirsanaa ee dadka bambooyin dushoodii ay ka dulqarxayeen maalin kasto ayaa ah dadkii ugu dhalmada batay dunida. Dalalka nabadda ay ka jirto ee dhaqaalaha haystaana weligoodii aanan maqal xitaa xabad dhacayso, dhalmadoodii aad ayay u yaraatay. Waxaana cilmi baarisadani kadib soo baxay fikrada dhahayo wadada dhalmada lagu yarayn karo waa in dalalka saboolka ah qani in laga dhigo, waa in colaadda iyo dhibka oo dhan laga yareeyo, oo nidaamkoodii dowladda, horumarkoodii dhaqaale iyo kaabayaasha asaasiga ee dalalka waa in sare loo qaado. Laakiin tanina suurtagal uma aha iyaga in ay dhalmo ay ku yareeyaan, beddelkeedii iyaga oo siinaya dhaqaalahoodii dalal aanan iskoodii waxba u qabsaneyn. Waa arrin aad u adag, weliba in natiijadii la filanayay in ay ka dhalan doonto maadaama aanan si garanti ah aanan loo ogeyn. Waxaa la quman maadaama dagaal aanan dhalmada lagu xakamayn karin xagga iyo genetiga, virus iyo waxyaabo lamid ah in bulshada lagu kala yareeyo. Xagga iyo cilmigana in bulsho gaar ah ama qoomiyado gaar ah oo keliya in tarankoodii lagu yareeyo virus bani aadamka isaga oo aad isku dhexgalay hidisidihiisii suurtagal ma aha. Qof madow ah iyo qof caddaan ah dhiigoodii iyo dheecaankoodii lama kala aqoonsan karo marka mikroskoobka hoostii la isku barbardhigo. Dad sidani oo kale isku dhexgalay oo wax badan wadaaga suurtagal ma aha xagga iyo hidisidaha in wax laga badbedelo bulsho gaar ahna sidaa lagu ugaarsado. Beddelkeedii aqoon-yahanada qaar waxa ay ku dadaalayaan HIV virus in uu yahayba virus shaybaarka lagu farsameeyey. Virus jira oo xaqiiqo ah oo Alle uu abuuray ayaa shaybaarka waxaa lagu bedelaa hidisidayaashiisii, kolkaasina bulsho dhexdeedii ayaa lagu dhex faafiyaa. In HIV dadka oo dhan isaga shakiyaan marxaladaasina bulshada tarankeedii in uu HIV cabsi ay ka qabaan darteedii inuu aad u yaraado. Tanina waa shaki aqoon-yahanada qaar ay qabaan, balse xagga iyo saynisyahanada eedeymahani si weyn ayaa loo diidaa. Waa eedeymo wax kama jiraan ah oo xaqiiqada cilmiga suurtagal aanan ku ahayn. Haddaba virus xitaa haddii la isku dayo in bulsho lagu carqaladeeyo, kolkaasi dadka oo dhan ayuu viruskaasi uu ku faafayaa. Qoom gaar ah in lagu ugaarsado ama bulsho cayiman oo keliya isdhexgalka bulshooyinka caalamka oo dhan aawadii suurtagal ma aha. Natiijadii laga damacsanaana weligeedii lama gaarayo haddii virus la isticmaalo. Sidaasi darteeda wadada ugu qurxoon ee dadka lagu yarayn karo waxa ay noqotay waqti xaadirkani wacyigelin, in dumarka lagu soo daro saaxadda siyaasadda, lagu soo daro shaqooyinka, laguna mashquuliyo gabdhaha sida ninka oo kale ilaa brofesornimo, in buug iyo qalin uun gabadha ay ku mashquusho, iyo in ay dhaqaalo sidii ay u samayn lahayd iyo shaqaraadin in gabadha sanado badan waqti in ay ku bixiso. Asal ahaan waxyaabahani oo dhan waa waxyaabo fiican oo dhaguhu ay u riyaaqaan in dumarka isku filnaansho iyo aqoon badan in ay kororsadaan, balse waxyaabahani waa waxyaabo dhagaha oo keliya ay u riyaaqaan, balse hoos u soo dhigay taranka dalalkii hodanka ahaa ee mashruucyadani in badan kusoo guda jiray. Haddii aad fiiriso siyaasadda wadamada mawduuca ugu muhiimsan ee dowladaha reer galbeedka, ha noqoto wadamada Afrika iyo Soomaaliya, sheyga ugu muhiimsan ee dowladda sistamkeedii oo dhan ay ku qiimeeyaan doodna ay ka keenaan waa kaalinta dumarka. Siyaasadda percentage intee la-eg ayay dumarka ay ku leeyihiin, heerka dumarka ay shaqooyinku ay ka soo muuqdaan, dumarka mala kulmaan cunsuriyad oo meel waliba gabar ahaan haddii shaqo ay ka soo dalbato caqabad mala kulantaa. Dumar badan oo iyaguna waxba aanan kala soconin xisaabaadkani hoose waxa ay ku fakaraan sida dumarnimo darteedii in ay dagaal ay ku jiraan, ama awoodii dumarka in dib ay u soo celin doonaan, wax walbana ay qabsan doonaan, sida mujaadalo adag iyo tartan dad ku jiro oo kale ayay wax walba u qeexaan.
xaqiiqada nolosha lab iyo dhadig alle ayaa kala qeybiyey. Suuradda Nisaa waxaa ku jirto aayadda 32 alle waxa uu ku leeyahay hadoondoonina wixii uu alle qaarkiin qaarka kale uu dheeraad siiyey. Nimanka waxa ay leeyihiin wixii ay kasbadeen, dumarkuna waxa ay leeyihiin wixii ay kasbadeen. Haddaba alle weydiista dheeraad siin, sababtoo ah alle waa midka wax walba yaqaana. Aayadanina waxaa laga faa'iidayaa micno ah in nolosha laba ay u kala qaybsan tahay. Doonka haweenka iyo doonka ragga waa in qofna uusan u riyaaqin jeclaaninna midka kale doonkiisii. Dheeraadsiintanina waa mid alle xaggiisii ka ahaatay. Gabdhuhu marka ay diideen nidaamka quruxda badan ee alle uu u jideeyey, waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaq feminism ah. Waxaa ka dhashay in bulshada akhlaaq xumada in ay ku faafto. Waxaa ka dhashay in dhalmada ay yaraato ragga iyo dumarka iyada oo farqi weyn uu u kala dhaxeeyo. Haddana dad aanan waxba kala ogeyn ayaa waxa ay farqigani ay ku fasiraan sida in loola jeedo ragga ayaa ka fiican dumarka. Tanina waa qalad kale oo weyn oo dheeraadsiinta loo laba jibaaraya ragga. Caqabadahanina in dumarka laga dhaadhiciyo waxyaabo badan oo sida isku filnaansho iyo waxyaabo badan oo la mid ah waxaa door weyn ka qayb qaadanayo ragga oo mas'uuliyadoodii in badan hilmaamay. Ragga haddii mas'uuliyadoodii ay hilmaamaanna dumarka iskoodii in ay u dhaqaaqaan danta iyo duruufta nolosha ayaa ku qasabta. Kuwa cusub ee nolol samaysan rabana in ay tusaale ay ka qaataan raggii hore sida ay gabdhihii hore ay u qaldeen ayaa sabab u noqotay ilaa ugu dambeynna systemka oo dhan sida maanta inuu u burburay ilaa heer dumar badan ayba ku doodaan ragga ayaan la simannahay. Si kooban, nidaamka wadamada hodanka ay ku dhaqmaan in dumarka waqtigoodii in lagu dhumiyo wax qabso sida ninka oo kale in ay mujaadala adag ee nolosha ay u gasho waxa ay halis ay ku tahay bulshada wadanka oo dhan. Dumarka alle ayaa iyaga u nimceeyey. Waxaa loo saqray ragga in ay fadhigoodii ay ugu qidmeeyaan, balse ragguna marka ay qayb ay ka noqdaan in systemka uu burburo waajibaadkoodiina aysan ka soo bixin dheeraadsiinta uu alle uu siiyey, wax kasta ayaa burburay. Tanina waa sociologiga bulshada. Mar haddii ragga ay dayaceen mas'uuliyadoodii, gabdhaha doonistoodii oo ay heli kari waayeen iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen oo raggii ay ka tageen ayaa inta laga faa'iideysto ayaa lagu dhiirigeliyaa si aysan qaladaad noocani oo kala mar dambe aysan ugu dhicin in ay iskeedii ay wax u qabsato. Systemkanina sidani ayuu si tartiib uu ugu burburaa. Doodahanina way adag tahay in lagu qanciyo qof in badan maskaxdiisii lagu camiray fikradahani iskaagii wax u qabso, isku filnaansho iyo horumar marka aad gaarto oo keliya nolol samayso waa fikrado haddii aanan la falanqeynin waxyaabaha ka dhalan kara ee mustaqbalkana aanan la saadaalinin dad badan ay ku saamoobi karaan. Haddaba wadadani wacyigelinta dumarka saameyn weyn ayay yeelatay maanta ilaa gabdhaha ay ku fakaraan in ilmahaba ay iska soo xiraan. Waxaa meel walba lagu arki karaa siminaaro u gaar ah oo dumarka loo qabto, keliyana lagala hadlo sidii ay wax u qabsan lahaayeen. In badanna la buunbuuniyo gabar shirkado iyo horumar gaartay dhaqaale samaysatay, lana buunbuuniyo gabar shahaado iskuulka qaadatay. Waxyaabahani buunbuuninteedii si kastoo wax fiican iyo horumar lagu tillaabsado ay u tahay, haddana natiijada ka dhalan doonta iyo falcelinta ay samayn doonaan dumarka siminaarada ka qayb qaata waxa ay lid ay ku noqon doonaan bulshadaasi tarankeedii iyo sida ay hore ay ugu sii socon lahayd. In dumarka oo dhan ay ku fakaraan in ilmaha ay iska soo xiraan keliyana marka ay u baahan yihiin hal ama laba canug oo keliya in ay ku gaabsadaan, iyada oo nebiga uu faray in dhalmada la badiyo, in ay dadka ay la qumanaato fikrada canugaasi in dhaqaale badan aanan loo heli karin waa fikrad halis ah, balse in dhalmada la iska xiro waa mawduuc kale oo gaar ah. Si gaar ah ayaynu u falanqayn doonaa. Nidaamkani wacyigelinta dumarka waxaa raacsan nidaamka kale
oo hadda lagu fakarayo oo ah in ragga oo dhan Y chromosome in madalays laga dhigo iyada oo loo marayo xagga iyo cuntada xagga iyo dhinta waxyaabaha daruuriga ah ee la isticmaalo ee warshadaha ka soo baxa si kastoo ay noqotoba in bulsho ay ku fakarto heerka xadgudubkeedii in dadka oo dhan in ay baabi'iso iyada oo kanaalo kala duwan u adeegsanaysa sida in iyada baaqi ay ku ahaan doonto dhulka waa fikir ka soo maaxda kaliya maskaxda shaytaanka iyo inta uu u waxyoodo tanina waa projecti weligeedii aanan lagu guulaysan doonin ilaa inta uu alle uga idmado u mooye inta raacda ee iyaga oo aanan ogeynna ku saamowdaa waxyaabo badan oo aysan ku baraarugsanayn marka ay dib ay uga baraarugaan ayay ogaanayaan in naftoodiiba waqti badan in ay been ay u sheegeen